geeli maanta waa kuu tuuran yahay oo wax gataa la leeyahay. halkan waa suuqa geela ee Madoogaasha deegaanka Lagdheer ismaamulka Gaarisa. horta waqtiga lagu jira waqtiga la soo kulnay waqti ka jiro corona waddanka dhaqaale ma leh geeli hadda hamar ma soonay kawaan baa loo gadan imreed. sayladan oo geela loo iib keeno maalinta Isniinta ayaa waxaa ka jira hoos u dhac iibka geela sida ay sheegayaan dilaalayda iyo ragga suuqan ka ganacsada. gada dilaal suuq baan corona geela hoos buu dhigay dhulku la dhacay suuqa geela maanta dhulku yaalla 75 baa geela u koreys 60 nawal heli u dambeyn 15,500 baa hooseysa waagi hore maqal siin jiray neefka 15,525 baa maanta 15,500 buu istaagay kan oo 70 kan neefka 80 ka ahaana wuxuu istaagay maanta 65 geela suuqiisa corona dhulku ku riday. الإنصار الحاج إبراهيم باليرادا قال بيع سنة ومركه ورا قال بيع اسمه فعنا إلا أورت واوين مرة إيجاري بقول باجرت بقول حضنا أورت واوين لحدا إلا تضباط بلا سوا سدا أوجد بيع قيلة أدبها صور عليه لا أو Madoogaasha geela marka hore wuu wanaagsanaa ilaa corona intuu imaaday geele hoos buu u dhacay suuqa sababtu ay tahay corona ayaa meel walba saameeyay nin walba oo soo kici lahaa oo wax gadan lahaa sababta corona ayuu u hakanaya oo isu baajin 100 ilaa 120 neef oo geela ayaa celcelis ahaan halkan imaada waxaana laga soo safriyaa deegaano kala duwan. أقبلان تنلله يا تو بناني يو أنت أول حساب معلمين يا راحوا له أنت ترى في الدجان ساميي سوق لي دول بساميي هواين كوتيل على أبوك ويسكا هواين يعني واحد ما نيو هواين ملء. waxaa jira dumar maalinta suuqa la jooga ka ganacsada oo maqaayada halkan ku haysta kuwaasoo dhankooda dareemay suuq xumada. gaar cabdiray barre markay beecshirada meeshan uu maanana kiska korsataanahay markay maalin walba suuqa marba waasi maalin wax uu nagu baari waan iska gadoomeynaa maalin kor buu noogu kacaya haddana suuqa suu noogu fiicnaa qashqashaada gashay magaalada aan ku jiiftaa suuqa walgu noo fiicnaa uu noo dhisnaa suuqa hor buu u socday magaalada hadda ku jiiftaa haddana waa kan dhuu isku qabsada maanta. saamaynta xanuunka koronaha iyo ganacsatadii geela gadan jiray oo qaarkood dhaqaale yareeyay ayaa sabab u ah hoos u dhaca suuqan sida ay qabaan bulshada qaybahooda kala duwan. ninka lacag lihi ninka neefka laan yar kala qarin jiray markuu geelo lacag lahaa hadda maxaan kala qarinaa wixii dhulku isla yaalaa isla taagan Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Madoogaasha.